wafdi uu horkacayo gudoomiyaha degmada Daroor iyo qaar kamid ah qurbo joogta labada degmo ee Gashamo iyo Daroor ayaa waxa ay kormeer ku soo mareen xarunta caafimaad ee qabalaha Rabaso ee degmada Daroor. xaruntan caafimaad centerka Rabaso oo shaqaalaheedu runtii aan ugu soo galnay anagoo si kalisoon ballan ahayn aanu nimi shaqaale runtii heegan u ah dadkooda oo u diyaaro u shaqeynaya oo qof walba aan ugu nimi kiyo xafiiskiisa ama shaqadiisa ku jira dhamaantood ilaa iyo maareeyaha xarunta ayaan runtii ugu nimi iyo dadkii oo loo adeegayo runtii dadkii bukay oo loo adeegayo aad iyo aad baan ugu faraxsanay aad iyo aadna runtii waa uga mahadnaqaynaa si dadkooda ay ugu shaqeynayaan ugu adeegayaan. geeska kala dhawaan ayay ahayd markii uu telefishanka Home Cable baahiyay cabashada shacabka ku nool Rabaso oo salka ku haysay biyo xireen ku yaala duleedka Rabaso oo shacabka baahi weyn ay u qabeen isla markaana dayactir iyo dib u habeen u baahnaa. haddaba tii oo laga duulayo cabashada shacabka ayaa waxa maamulka degmada Daroor ay ka jawaabeen baahida dhinaca biyo xireenka ahayd taasi oo waqti xaadirkan dayactir lagu sameeynayo. wuxuu ka qaalisanaa balligani riig uu ka qaalisan yahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin si wanaagsan ayay degmadu dayactir ugu qabatay imakana 70% ayaa qodmay marka balligani waa balli qaaliya uu dayactirkiisa si fiican baa loo wadaa. dhanka kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Daroor iyo qaar kamid ah qurbo joogta deegaanka. maanta waxaan ku nimi kormeer ceelkii Rabaso oo la dayactirayo oo maaragtay cagaftii iyo iskargooyinka ay ku jiraan alxamdulilaahi rabbil caalamiin. hore waxaan soo kormeeray isagoo aan maaragtay dayacan oo u baahan in la dhoobo qaado gacankii xaggaasna laga xidho meelihii ay biyaha ka jabisayna in laga xidho iyadoo u baahan baan hore ugu nimi alxamdulillah waan ku faraxsanahay inaan soo maray iyadoo ay shaqadii socoto meel fiican waliba ay marayso. shaqadan dhaamkan weyn ama ceelkan weyn ee Rabaso oo runtii dhaamanka ugu waaweyna waxaan oran karaa cabirka ku fadhiya waa ilaa 200 iyo 150 mitir square waxaan oran karaa waa dhaamanka ugu waaweyn. shaqadiisan dhoobaqaadkii maanta waxay maraysaa saa uu sheegay in ay 70% ay qabsoontay oo ay dhameystirantay 30% inta hadhantay waxa weeyaa waxa lagu dhameyn karaa muddo gaaban runtii rag jabsan oo aanu aragnay 24 hours heegayina way qodayaan oo dhoobaqaadayaan. maamulka centerka Rabaso ayagana runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa heegan u ah oo xilli roobaadkii ay tahay inay ka gaarsiinayaan ayagana waa mahadnaqaynaa. waxaan aragnaa runtii si fiican u socdo. عبد الجليل عثمان سمو warbaahinta Home Cable degmada Daroor ee gobolka Jarar.